shirkadda farsamaysa agabka militariga Aselsan ee dalka Turkiga ayaa dalal ka tirsan gaashaanbuurta NATO waxa ay ka soo dalbadeen in laga iibiyo hubka ku shaqeeya hanaanka hagaha remote-ka sida ku cad war ka soo baxay shirkaddan. laakiinse si gaar ah shirkaddu uma sheegin ama uma magacaabin magacyada dalalkaas NATO ka tirsan ee agabkan laga iibinayo. waxay tirada dalalka guud ee doonayo hubka noocan ah ilaa iminka qandaraaska la galay shirkadda Aselsan ay gaarayaan ilaa 20 dal. lama sheegin inay dalalkaasi ay NATO ka wada tirsan yihiin iyo in kale. shirkadda Turkiga Aselsan ayaa ilaa iminka dunida ka iibisay 3,000 oo hubka lagu hago remote-ka oo ah hanaan casri ah. hubka remote-ka lagu hago ee RCWS ayaa isugu jira noocyo badan sida gantaalaha, madaafiicda goobta, qoryaha culus ee darandooriga iyo noocyo kale. dalka Turkiga ayaa farsamada tiknoolajiyada heer sare ka gaaray. iibka hubka uu hadda soo saarana wuxuu gaaray qiimo sare, wuxuuna yeeshay dalab xad dhaaf ah oo aan la saadaalin karin sanadihii u dambeeyay. Kamera